دبا فهمنا دمان تيد waxay ku salaysantay al-ibtilaa al-hayati dunya quraanku qisaska weyna siiyo iyo anbiyadu quraanku ka waramaana iyaguna waxaan leenahay waa النماذج البشرية السامية أو الناجحة في الابتلاءات وياه ككلاو قرآنك كشاكية يعني قرآنك كيالان والنماذج أما وتصاليال كلو بني آدم أو يناكو ساقضي امتحانك التاريخ الإنساني مكا وحويان والتجربة الإنسانية أما وابتلاء سقفك بني آدم كوصامري قرآنك قصص كينوغا ورما أردمنا وقولا امتحانك إلا مريي كقولي ستي إيا قولا امتحانك إلا مريي كساقضي أنبيادنا iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nabi walba haddaad quraanka u sii fiirsato wuxuu mutakhasis gaara ku siiyay nooc min al-ibtilaa oo basharka aakhira xujo ugu yimid in isaga la mariyay oo ay macquul tahay intuu bini aadamku maro fi xuduud taaqa al-bashariya inuu ka xadgudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo way anbiyadu waxa weeyaan waa shuhadadii maalinta qiyaame dadka oo dhan ku markhaati kacaysay مثلا نماذج فضود والظلمرة هدان تلمام أشد الناس بلاء بين كل تلمام نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أبني ما يتصالكوي قرآن كوحين أغا والرمية إن لغو اتحامي أبني ما وعلى تلمام إنه إلهي سبحانه وتعالى مركا هريدا شكاحري أو قبوبي أو داء قاري أو يسوق الداء وإلهي بريه سبحانه وتعالى وإلهي ويرسيه لكن أولاد مرة دا امتحانك كم متحي أنبياء النبي كتير مركا تخصص كان لسيي وعرورتي سيلوه اتحامي إبراهيم يعقوب لبضبا امتحانات كم ويكاله نبي الله إبراهيم وحل فري كي ودد بك هيستوي إلهي ويديستي إنو قورع بليري قورع وامتحان nin weynaaday oo da' gaadhay oo muddo badan aan dhalin oo hadda ilmaa la siiyey oo ilmihii hadda yara taracrucay oo xoog yara yeeshay oo haddana amar lagu siiyey midhka kaliyana inuu birta mariyo laakiin uu ku guulaysto markuu aqbalay inuu birta mariyo ilaahay faraj u furay waa imtixaan aad u khatiira imtixaanka aabanimo ibraahim la mariyay tan oo qura maaha حتى هذا حديث توفر ستحدث كي بخاري محوت المامي مركو إسماعيل انتو سوك حييه هو يدي وكجت جاي بيت الله الحرام هلك أمك ها وسكجت دقاقي محو وجت جاي والنبي قيس كيسي لغوي تحامي لكن وحال لغوي تحامي بالقيس كان سيدو كي لا يدين تيسا قيس كان وحي وجيستان دبتنا وحال يدين انت هذه المهاجة يا هو انت هذا قادي meel lama daga agee oo hal qarbado biyo ah iyo qarba timir inta adu dhigto iskaga tag nabi ibraahim wuxuu dhigay haweentu qabay ilmihiisii meel lama daga ah dabeetana uu iskaga dhaqaaqay haweentu way qaadan kari weyd waxaan cidlada ah aan reer deganayn ee biyo oo linay waxba waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira harag yaroo la maalaasay inta miro ku jirtay in biyo ku jira la garan karo maalmo dabadood inay go'ayso cid ay ciirsato kale aanay meesha oolin ibraahim markuu iskaga dhaqaaqay ka daba timi xadiiska bukhaari suu sheegaya waxay tilmaamayaan inay muddo ka daba hadlaysay yaad nagaga tegaysaa ibraahim oo uu jawaabi waayo iska socday muddo markay daba socotay su'aal weydiisay allahu amaraka bihada bay tiri cidladan aad nagaga dhaqaaqaysa ibraahim ma allah ku faray haabu ku yidhi ilaahay baa faray subxaanahu wa tacaala إذن لا يضيعنا بيتر هدي الله كفري هدا الله نما ضيعي مع السلامة يعني اسكتك مرضو الله أمر كي أي تهي بنان كافر فريستا ولا بدا قربتنا هايستا إلهي هدو سيان قواميين نولال باسدو ألا قواميين كتشرته وأنو يالينا بيتر إلهي سبحانه وتعالى وتقاني نحو سميي إيسار نرشي اللي وقف ديديي إيا إلا هدا الشعائر التعبدية مدينو كحصوصا نرهر كان إيا موقف كيسي السعي بين الصفا والمروة أيو كعبضا أيو وحن أردم وحين حصوصين أيان قضية من قضايا العقيدة التوكل على الله
dad sameeyey waa tajriba ibtilaa'iya uu nebi galay tusaale kaleaan idin siiyo maalan nebi galay tajriba ibtilaa'iya ah nebi dhallinyaro oo qurux lagu itixaamay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam aakhira wuxuu ku markhaati furi doonaa gabadh kasta iyo wiil kasta oo intuu mushkiladda tani gala dhowrsoomi waaya ibtilaa baa la geliyey ah in quruxdiisii ay fidnayso khilqadiisii alla uu abuuray subxaana wa tacaala inay fidnayso oo dadku isu tilmaamaan ilaa xad ay gaadhsiisay gurigii boqortooye uu ku noolaa haweentii joogtay inay hungurayso imtixaankan u fiirso qof la hayo oo guriga lagu hayo oo la leeyahay oo shaqaalo ah laakiin gabadh sayidatulqowm ah oo mansab sara leh oo qurux leh oo xoola haysato caynkan ay u yeedhayso oo diidan waa tusaale oo ah lishabaab dumar qurux badan baanu u nimiyo dhul gaaleed baanu nimiyo meelo lagu barwaaqaysan yaha la nimiyo mushkiladda badan aakhiro nebi yuusuf baa taagan oo markhaati ah oo shaahidka ah qadiyadda tan inuu insaanku hadduu iimaankiisu dhammaystiran yahay inuu isxejin karayo mahmaa kahura ama ibtilaagu in kasta oo weynaado waxaan leenahay qur'aanka haddaad u fiirsato nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebiyullaahi haaruun waa tusaalay basharka u yihin daalimka ka hortegiisa ah waxay tusaale ugu yihiin in kelimatulxaq lagala hor tago cid kasta aakhiro cidda ku marmarsootee tidhaahda waa la xoog badnaayo waa la weynaayo waa kan waxaa la tilmaamayaa nebi haaruun iyo muuse inay joogaan iyagoo cidda loo soo diray ayaa ahayd fircawn wamaa adraaka maa fircawn waa ninkii intuu dadka is hortaagay ummad ugu khudbaday ana rabbukum ulaclaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri bale fircoon xukumkiisu waa dictator aan dunida weli lahaynin taariikhda caalamiga ah akbar dictator waa kaa uu qur-aanku ka warramayo waayo miyaa aragteen nin dawlad xukuma oo shacabku xukumaya qayb ka mida ku xukuma inaanay rag dhalin iyo dunida ku aragteen nin xaakimo oo yidhaahda reeraha qaybo ka mida ummadda aan xukumo wiil ma dhali karaan fircoon intuu istaagu yidhi wixii reer banu israa'iil rag ma dhalaan sanuqatilu abnaahum wanastaxyi nisaahum raggu ha madho haweenkuna ha hadho wamaca daalik nebi baa loo soo diray waajiha mushkiladda intaa leeg waa aakhiro tusaale cid walba hor taagay yacni waxaan leenahay ambiyadu waa stars ama waa xidigahu waa fabihudaahu muqtadi kuwa alla nebigiisa ku leeya calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed xataa haweenka ambiyadu waa tusaalayaalkaa qur-aanka sidaa ugu taxan marka kullu shay iyagaa tusaale ka ah kullu shay iyagaa tusaale ka ah haweenku waxaynu naqaanaa nebiye kuma hayno amhiladoodii laakiin qur-aanku wuu tilmaamaya mawaaqif akbar taaqiya haweenays hortaagta oo mulkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo wixiisaba ka doorbidda inuu ilaahay guri jannada uga dhiso aasiya haweenaydu fircoon qabay waa ka alle subxaana wa tacaala qur-aanka ka warramayo mowqifka istaagtay oo ay ka door bidayso boqortooyada tan iyo xoolaheeda iyo ninkan leh anhaarta hoostayda maraysa iyo mulku misri iyo waxaanaan haystoo dhan waxay ka door biday inuu alle bayt filjanna uga dhiso waxaa qur-aanku mihaalu inoo siiyey haween kale maryamo ah waxa uu qur-aanku tusaale inoo siiyey muuse hooyadii waxaa qur-aanku tusaale inoo siiyey lilxayaa gabadh xishoonaysa nebiyullaahi muusa inantii ama hablihii uu u waraabiyey waxa qur-aanku uu tusaale inoo siiyey matalan haween duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqayso laakiin shaqadu inaanay keensanaynin inay xayaageedii ka tagto waa labadii hablee walaalaha ahaayee uu nebi muuse ugu yimi ceelka
dadku markuu xoraabsanayaan adhigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya markay raggu ka dareeraan meesha intay u weydaan way shaqaynayeen haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan waayo aabahoodna wuu gaboobay cid kale u shaqaysana ma haystaan laakiin xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tegsiinin shaqadu kamay tegsiinin aakhira gabadh kastoo tidhaahda duruuf ilcamal baa igu kaliftay waxan iyo waxan iyo waxan inaan sameeyo waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo o u taagan waa shuhadaa waxaan leenahay qur'aanka waxaa qiso ku aragtaa xukaamta maalan ambiyaa ilaahay halkan u dhigay aakhira ku markhaati kaci doonta qofku markuu siyaasi noqdaa unbaa suldadu gashaayo waxa kana wuu fasaa ambiyaa ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa wakhtiga iyagu maamulayeen alcasru adahabi lilyahuud qoomka yahuudda ama reer banu israa'iil loo yaqaano waxay yidhahdaan taariikhdooda waxaa ku jirta wakhti ay u yaqaaniin alcasri dahabi